السلام عليكم. وين السلام يا أصحابتك هرن بيتينا. عشركينا maanta waa salaam lashma tanishma. halkan ujeedaan waxaa taalo 9 kelimadood. 9kaas kelimadood ayaa maanta insha Allah baran doonaa. saacadda meeshan ku qoran waa 1 saac bar waa subax. maama wiilkeedu u imaatay waxay leedahay Gunaidan, subax wanaagsan. Gunaidan asagana jawaabtiisa waa Gunaidan. laba wiil oo wadada iskaga hor imaatay merhaba waa soo dhow, asagana sidoo kale merhaba ayuu ugu jawaabay. hooyadii ayaa subaxii wiilkeeda iskoolka u dirayso waxay leedahay hoshchakal mac salaama. hoshchakal wiilkiina güle güle ayuu leeyahay asagana sidoo kale mac salaama, güle güle. maamada deriska ayaa xaafadda loogu imaaday hosh geldiniz. maamadan ayaa leh soo dhowow, hosh geldiniz. iyadana waxay ugu jawaabtay hosh bulduk, waan dhowahay. hosh bulduk, waan dhowahay. qoraxda saa ujeedaan waa maalin haddii 5 saac ilaa 6 saac abaaraas qorax aad joogto. laba gabdhood wadada iskaga hor imaatay waxay isleeyihiin iyi günler, maalin wanaagsan. iyi günler, maalin wanaagsan. iskoolka waqtiga laga baxayo waa hadda saacadda meesha oo ku qoran tahay 12 bar. iyi akşamlar, maqrib wanaagsan. iyi akşamlar, maqrib wanaagsan. saacadda waa 4 saac habeenimo, waa xilligii la jiifan lahaa. maamada wiilkeeda u imaatay halkana waa ka daminaysaa. iyi geceler ay wiilkeeda ku leedahay habeen wanaagsan. asana sidoo kaleeto iyi geceler ayuu leeyahay habeen wanaagsan. waa mahadsantihiin. like iyo commentiga ha ilmaamina.